dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena caawa intaana barnaamijka sii gudagelin waxaan aadaynaa qadar yar oo xaysiisa. waxaan u maleynayaa barnaamijkan ayaa maanta nagu dambeysa. meeshaan kireeda 2 bil ayaa naga rabaan. hoos u dhac fara badan ayaa jiro xagga dhegeystayaasha. barnaamij soo afjar. dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena mar kale. caawa aad baan ugu xunnahay sababtoo ah barnaamijkeena caawa ku egyahay, balse intaana bixin waxaan rabaa inaan hal su-aal idiin reebo. su-aashaas oo ah mathalan hadda markii qof dumar oo kale la kufsado culamada maxay u gaabsadaan ama maxaan dhihi karnaa oo sabab u ah arrintaas. haddaa su-aasha kasoo jawaabaysid fadlan naga soo wac eber 723 ama 072323. niyo maxaa kaa qaldan? waxaasee kuu dirsan. telefoon qabo. walaal magacaaga meeshaa naga soo wicisid kusoo dhawo barnaamijka. niyo magacayga iyo meeshaan ka soo jeedo waxba kaama gelin kuuna sheegi maaye. nimayan waa dhaqan xuntihiin oo culimada faraha ka qaada. walaal adoo mahadsan fadlan su-aasha naga jawaab. war waxaa ka jawaabi mayno aduma dhagalaada horta kuu jawaabi mayno culimada faraha ka qaada. ma dadka waxaad weydiisaan baad weydeen markaad afraadsaa culimada iyo dadkii. walaal culimmadu waan jecelnahay mana aflagaadeen, balse su-aasha keliya naga jawaab adoo mahadsan. niyo wax dhaqan xun baa tihiin orda meelaha su-aalo fiican oo dadka ay weydiisaan. dhegeystayaal idinkoo mahadsan waxaa naga soo wicisiin eber 72323 ama 072323. balse hal mid aan idinka codsanaynaa, haddaana soo wacaysaan keliya waxaana soo wacaysaan inaad su-aasha naga jawaabtaan, inaad aflagaadisaan ama wax naga sheegtaan ama nacaysaan hana soo wicin idinkoo mahadsan 072323 ama eber 72323. kusoo dhawo barnaamijka walaal meeshaa naga soo wacaysiya magacaaga. walaal magacaygu waa burka waxaan ka mid ahay soomaalida ku nool magaalada Mumbai. barnaamijka horta runtii waxaa kusoo qaadateen qodob cajiib ah oo loo baahan yahay in laga hadlo. annaga haddii aan nahay Soomaalin iyo xogaa degdeg aan ugu jiro culimada waa inaan lagu xadgudbin. dadka qaar waxay leeyihiin culimada maxay uga hadlayaan oo keliya gabar sulwaal xirata iyo arrimo noocaas oo kale ah ee uga hadli waayeen arrimaha kale ee ka mudan. marka aniga waxaan qabaa in culimada yaa lagu degdegin. culimadu waa hogaankii, waa warisatul anbiya waa dadka loo baahan yahay inaan dhanka diinta kaga dambeeno. marka waxaan dhihi lahaa walaalayaal culimada yaa lagu degdegin. wayna ka hadli doonaan yeena degdegin way ka hadli doonaan arrintaasi. aan iska sugno jawaabaha ay culimada bixin doonaan hadduu ilaahay idmo. soo dhawo burka mar kale walaal aad iyo aad u mahadsan tahay. qadka xiga walaal. niyo anigoo mar kale soo laabtay nimayahow adiga iyo burka waa khaldantihiin. waxaanaad dhegeystayaasha ku raadinaysaan cidi idinku dhageysan mayse. culimada nimayahow faraha ka qaada. waxaanu aadaynaa qadar yar oo xaysiisa waan isku soo laabanaynaa. ها أبو عليكم السلام. صح أبو علمنا هاي أبو وكبح برامج كان هاي. dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena caawa mar kale. waxaa waaye horta qaladi aan lee fahmin anaga su-aal ba iga ahayd. culimadeena waa horta aad baan u jecelnahay waana soo dhaweyneynaa, laakiin oo keliya ah su-aasha qaladi aan lee fahmin. raaligelin baan ka bixinayaa inta qalad u qaadatay. inta kalena waxaa idin leeyahay habeen wanaagsan. barnaamijkeena intaanu ku egyahay maca salaama.